magacaygu waa Tresha. dhacdadani waxay igu dhacday xilli aan ku noolaa California, balse ani dhasha ahaan waxaan ahay gabadh Canadian ah. xilligaas waxay ahayd xilli winter ah oo uu da'ayo roob ama baraf. habeenkaas waxaa soo daahay ninkeyga, waxa uu kusoo daahay shaqadiisa. wax yar kadib waxaa damay nalkii, waxaana hawada ka baxay dhammaan signalkii. waxaan yara dareemay cabsi, waxaana damcay inaan shito shumac, balse waan awoodi waaye oo waa iga halaabay. waxaana shitay telefoonkeyga. waxaan shaqal ka maqlay dhanka jikada, anigoo aad naxsan ayaana soo aaday. markaan imaaday misna waxaan arkay wax dhex taagan. waxa u ekaanin, balse si ahaan ama jir ahaan ma uusan ahayn qof caadi ah. indhihiisu waxa ay ahayn kuwa dhaqaaqaya, afkiisana wuxuu ahaa mid aad looga cabsado. waxaan ku dhahay, yaa tahay, maxaase guriga ka dhex qabanaysaa? wuxuu igu dhahay, meeshan wax badan ayaan ku noolaa, mana aanan rabin inaan soo baxo, balse hadda waxaan ku qasbanaaday inaan soo baxo oo waxaan rabaa hal mar inaad hab isiiso. waxaan ku dhahay, muwaanantaadig, aniga waxaan ahay naag askariyad ah, mana isu dhawaan kartid. gacanteeda ayaan jeebka gashaday, balse xaqiiqadu waxay ahayd aniga askariyad maanan ahayn, weligeena maanan noqonin. wuxuu dhahay, waxaa rabtid ahaw, keliya waxaan u baahanahay hal mar inaad hab isiiso, kadibna waan iska laabanayaa. keliya hal mar inaad hab isiiso. tana waa igu caddaatay anigana aadayo noo cabsaday. gadaal ayaan oga durkay ninkii, anigoo aad ooga cabsanaya. isagu wuxuu ahaa mid igu soo dhawaanay, waxaana ku hayay, waxaan ahay naag askariyad ah ee ha isu dhawaaneen. balse isagu wuxuu ahaa mid aanan dhiginin arrinkaas. waan kasoo jira carri, waxaana kusoo dhuntay meel geesan. isagaa waa uu iga soo dababaxay, wuxuuna ku hayay, kaalay, keliya waxaan u baahanahay inaad habsiiso. wuxuu damcay inuu aado dhanka kore, balse hal mar ayuu soo kala fireeyey, waa uu soo laabtay. waxaan dareemay inuu soo socdo, uu gadaasheeda socdo. indhaha ayaan isku qabsaday, waxaana bilaabay inaan ilmeeyo. waxaan dareemay meesha istaagay. haddii aan hoos fiiriyey mise namaba joogo. kor ayaan soo fiiriyey, waaba isagoo isoo fiirinayo oo korkeyga taagan. aad ayaan u cabsaday qaabka uu isoo fiirinayo. waxaan gadaal ugu tuuray miiskii meesha yaalay, oo gadaal ayuu u dhacay. waxaana bilaabay inaan cararo isagoo dhulka yaallo. isagababa uusan ahayn waxaas u dhan ka qasan tahay, amaba dareemayo, amaba nin xitaa ka cabsanayo waxyaaba qaar ina sameeyo. albaabkii qolkayga ayaan galay, waana soo xirtay. waxaana gacanta ku qaatay alwaax yaro meel yaalay, balse arrinkaas ma ahayn mid celisay ninkaas. wuxuuna bilaabay inuu soo jabiyo albaabkii. aad ayuu albaabku soo garaacayay, waxa uuna rabay inuu soo jabiyo, bal waa soo jabin rabay oo albaabka aad ayuu usoo riixayay awoodiisoo idil, ilaa ugu dambayntii uu ku guulaystay inuu albaabkii soo furo. weli isagoo leh waji aad u cabsi badan, wuxuuna ku hayay, keliya hal mar ayaan u baahanahay inaad hab siiso. wax kaloo ma baahni, keliya hab. warniyo wax waalana tahay intaan dhahay ayaan baashii la soo aaday, misna gacanta ayuu iga qabtay, weliba si xoogan oo aad u xanuun badan. waxa uu ahaa mid aad u xoogan oo gacanteeda wuxuu ku hayay awoodiisa oo idil, ilaa gacanteeda uu gebi ahaanteedaba jebiyey oo isdabamariyey. aniga xanuun aad daran ayaan dareemay, waxaana bilaabay inaan ooyo. wuxuuna yidhi, ma rabin inaan midaas sameeyo, laakiin waan ku qasbanahay inaan sameeyo. wuxuuna bilaabay inuu jilbaha dhulka dhigto, kadibna uu hab dhiseeyo. aniga maanan awoodin wax aan sameeyo, waxa uuna ahaa mid xoog isii qabanayo. waxaana igu xirmay aniga neefta, mana aanan awoodin ninkan xooga badan ee feeraha weyn leh inaan iska fujiyo. wax walba oo aan sameeyey waan isku dayay, balse maysan ii suuragelin. wuxuu iga hayay gacmaha oo maba aanan awoodin inaan dhaqaajiyo gacmaha. cidiyihiisa dhaadheer ayaan iga jeexay gacanteydii. aad ayaan u xanuunsaday, aad ayaan u ooyey, ilaa ugu dambayntii ee korontadu noqotay mid soo laabatay, oo korontadii ayaa soo dhacday oo dib u soo laabatay. markaas ayuu iga foqay. waxaan ka qaynay gacanta si uu iga foqo. waxaana bilaabay inaan cararo oo aan soo qaato baashii aan watay, kadibna aan ku tooro ama aan ku dhufto. balse arrinka la yaab kale ayaa ahaa inuu isagu iska dhowla cadeynayay, iska qoslayay, bisna aadan ba moodin ninkii waxaasoo dhan sameeyey. anigii waanba yaabay, waxaan isdhahay qofkan qof caadiya maba ahanba. wuxuuna bilaabay dhankeyga soo aado. baashii ayaan haystay ayaan daaqada ku tuuray,
daaqadii ayaan ku jabiyey, daaqada ayaan iska soo tuuray anigoo nafteeda la cararaya. barafkii ayaan ku dhex dhacay, markiiba waan ka dhex kacay oo waanba sii cararay maadaama aan aad u cabsanayay. balse nasiib daradeeda waxaan arkay isagii oo sidoo kale soo booday. barafka aad ayuu u qaboobaa, qabooba aad u daran ayaa jiray, aad ayaan u jaraynayay ilaa ugu dambeyntii aan dareemay inaan wareerayo amaba aan dhici rabo. isagana wuxuu ahaa mid aad u qaylinaya, ku lahay qabow ayaa jiro, banaanka waa qabow iyo erayaa noocaas oo kaleeta. waxaad moodaa nin aanan ku tasnayn qabowgaas. aniga waan isyara adkeenaya intaas oo waxaan ka cabsanay ninkaas inaan dib u qabsado. dhulkii ayaan ku dhacay ilaa ugu dambeyntii aan ku soo kacay ama aan ku soo naaxay anigaa u dhex jiifo isbitaal. xilligaas maan ogeyn ciddii soo qaaday oo meeshii keentay, laakiin nasiibkayga booliiskii ayaa yimid oo booliiska ayaa arrinteeda la wareegay. booliiskii waa ay baareen dhammaan guriga agagaarkiisa iyo wax kastoo ku xiranaa, balse ninkii ma aysan helin. balse aniga iyo ninkayga waxaan go'aansanay inaan gebi ahaanba iskaga tagno California oo aan dib ugu laabano Canada. taasna waxay ahayd sheekadeeda. fadlan waxaan kaa codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, sidoo kale haddii aad hore noola joogtay ama aad nagu cusub tahayna subscribe iyo like.